بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمة الصوماليات meel kasta aad joogtaa waan salaamay. weligaa ma isweydiisay malabku muxuu ka kooban yahay, maxaa laga sameeyey malabka, faa'iidooyinkiisu waa maxay? ilaahay subxaanahu wa ta'aala markuu qur-aanku sheegay oo yiri yakhruju min butuniha sharaabun mukhtalifun alwaanuhu fiihi shifaa'un linnaas, caloosheeda waxaa ka soo baxa sharaab cabitaan midabo kala duwan leh oo dadku isku daweeyaan. sabab weyn baa jirta inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo sheegay inuu malabkani faa'iidooyin fara badan leeyahay. malabku muxuu ka kooban yahay? waa cuntada ugu muhiimsan adduunka markaynu eegno oo bani aadanka caafimaadkiisa iyo xooggiisa iyo awoodiisa ilaalinaysa. sababtoo ah waxyaalo fara badan ayaa ku jira. waxaa ka mid ah macdan oo aynu naqaano minerals, fitamiinada asaasiga ee daruuriga ee jirka baniaadamka u baahan yahay. waxaana ka mid ah fitamiinada vitamin B. waxaa ku jira carotene maadada la yiraahdo hadhowto beerka u bedelay vitamin A, taasuna muhiim waxay u tahay dhinaca aragtida iyo indhaha. protein baa ku jira malabka. waxaa ka buuxa wax la dhaho antioxidant oo waxa weeye waxyaalaha maaragtay jirka dhibaatooyinka ama sunta ama cudurka u keenaya bay kaa fogeynaysaa. antioxidant weeye malabku. waxyaalo fara badan buu leeyahay. waxyaalaha ugu muhiimsan waxa weeye cudurrada ayuu la dagaalamaa. matalan bakteeriyada oo kale, parasite ama dixiriga oo kale, waxaa muhiim ah viruskana wuu la dagaalamaa. malabku waxa weeye waa nafaqada ugu muhiimsan ee kaa celinaysa fayrasyada. matalan bani aadamku jirkiisa waxaa jira wax la yiraahdo aljihaaz almanaaci ama immune system. jihaaz almanaaci wuu ku adkaynaya, wuxuu ku siinayaa awood aad kula dagaalantid bakteeriyada iyo viruska. maalmahan iminka aynu joogno waxaa jira waxaa soo baxay wax la dhaho corona covid-19. dawo ma laha cudurkaasu, dadku si qeyr caadiya loogu dhintaa. dawona ma laha, vaccine ilaa iminkadan wax lagaga hor yimaado ma laha. laakiin midda muhiimka ah waxa weeye in aad jidhkaaga nidaamka difaacaya kaa difaacaya cudurrada inaad adkaysid. maxaad ku adkaynaysaa haddaba? waxaad ku adkaynaysaa malabka. halkan waxaan kutusayaa dariiqad yar, wax yaroo basiid ah. toban baad keenaysaa 8 xabo oo maaragtay jajabka yaree toonta ah. maaha xabad dhan, maaha 8 xabo maaha, laakiin waa jajabkeeda 8 jajab ah oo toon ah. 2 koob oo malabka. malabkuna waxa waa malabka pure-ka ah asliga baad ku ridaysaa. 2 koob waad ku ridaysaa, waxaad u daynaysaa meel maaragtay qalalan bil baad u daynaysaa. marka maalin kasta waxaad ka qaadanaysaa malqacad, 2 malqacadood baad ka qaadanaysaa. taasuna waxay ku adkaynaysaa immune systemkaaga ama qaybta ka mas'uul ah difaaca jirkaaga. waxaad kaloo samayn kartaa, waxaad ku dari kartaa malqacad yar oo xabatil baraka ah iyo malqacad weyn oo malabka dabiiciga ah. inta haddaad isku dartid maasha allah. marka fayruusyadaasoo dhan waxaad kaga hor iman kartaa inaad difaacaaga jirkaaga adkaysid. faa'iidooyin fara badan buu malabku leeyahay. waxaa ka mid ah caloosha ama jihaaz alhadmi ama digestive system, xubnaha jirka mogta ka mas-uulka cuntada iyo markaad cuntada cuntid iyo meelihii loo baahan inay gaarsiiso oo caloosha ugu muhiimsan tahay. waxa weeye cudurraday ka ilaalinaysaa. waxay ka ilaalinaysaa caloosha nabarrada caloosha ku dhaca. haddaad 2 malqacood maalin kasta cabtid, 2 malqacood oo fresh casalka asliga ah, cudurrada caloosha aad bay u yaraynaysaa. miisaanka dadka raba inay miisaanka iska dejiyaan, malabku waa dawo. malabku energy buu ku siinayaa si aad mogtahay shaqadaada caadiga u qabsid maalin kasta. malabku infectionada jirka oo dhan buu kaa celinayaa. hadday noqoto influenza ama kuwa viruska hore u sheegnay, waxaas dhan wuu kaa celinayaa. malabka haddaad isticmaashid intaadan seexan wuxuu samaynayaa dufanka jirku kaa gubay, wuu gubayaa. cholesterolku yaraynayaa. cholesterolkuna ogtiin waa dhibtiisu ma yara. wuxuu xidhayaa xididada wadnaha dhiigga qaadaya ayuu cholesterolku xidhaa. taasuna waa khatar weeye. malabku waxaas dhan kuu safaynayaa. kansarka waxa weeye malabku waa dawo. kansarka dawo u yahay. malabku maqaarku u fiican yahay. maqaarka wuu daweeyaa cudurro badan oo ku dhaca maqaarka. malabkaa daweeya sababtoo ah fitamiinaad badan baa ku jira iyo macaadin ama minerals badan baa ku jirta oo maqaarka u fiican. malabku wuxuu u fiican yahay qofka qaba anemiyada ama dhiigu ku yaryahay ama faqri dam. waxa weeye qofka waa u fiican yahay malabku sababtoo ah hemoglobinka ku jira unugyada dhiigga ee cascas ayuu ku badinayaa. caruurta malabku caruurta aad buu u fiican yahay. influenzada iyo dhaxanta iyo caruurta wuu ka celiyaa. unugyada dhiigga cascas buu caruurta u badiyaa. cunto xumada caruurta badarkasaan waxba cunin, malabkaa la siiyaa. malabka dabiicigaa la siiyaa, waa u fiican tahay. microbka ama fungiga waxa la yiraahdo ayuu malabku u fiican yahay. infectionada ku dhaca sanka iyo sanka gudihiisa, infectionada ku dhaca iltihaabaadka waa u fiican tahay. cudurrada beerka ku dhaca caruurta malabka dawo ah. timaha xitaa waa la sheegay inuu timaha inuu u fiican yahay malabku. cuno xanuunka, cunuhu qof markuu xanuuno cunaha ama qufaca fara badan waa u fiican yahay. xaqiiqatan marka laga sheekeeyo faa'iidooyinka malabka, faa'iidooyin aad u fara badan buu leeyahay. waan soo gaabiyey laakiin faa'iidooyinkiisa lama tirin karo. maalin dhowto waxaan tegey dowladda qatar baan tegey. waxaan ku arkay carwo malabka ah oo cajiib. adduun weynaha meel kasta looga yimid. dowlad kasta waxay lahayd meel gooniyay furatay oo 12 casho ayaa moogtahay dadka la tusiyey. meesha waxaan ku bartay inaan reer Djibouti aan ku bartay oo malabka ayuu ka shaqeeyaa. Yemen iyo Dubai iyo Djibouti ayuu malabku kala qaadqaadaa oo wuxuu ku leeyahay masha Allah shaqo business cajiib ku leeyahay. waxyaalo badan buu iga sheegay malabka oo aan ogeyn ayuu i sharaxay noocyada ay hayaan iyo sumarka, casalka sumarka ah iyo casalka sidirka ah asliga ah. waxay ka keenaan tog weyn oo la yiraahdo Wadi Dawcan. Wadi Dawcan waa tog ku yaala Hadramaut dhinaca Yemen. malabka asliga dabiiciga laga helaa. subxaan allah.
halkaas shinnida moogtahay lagu dhaqaaleeyaa oo maaragtay lagu beeraa waxyaalahaas oo dhan. marka waa ka qaatay malab baan ka qaatay, rag khubaraan u geeyey, waan eegnay, waxaa la ogaaday inuu yahay 100% inuu yahay pure casal ah. marka waa ka faa'iidaysan aniga lafteedu waxyaalo fara badan ayaan ka helay aad iyo aad. xitaa dadka ku nool meelahaas buraha iyo magaalooyinka yaryar moogtahay malabka meesha malabku uu ka buuxo shinnidu moogtahay ku nooshahay, dadka meesha ku nool way ku yartahay inay moogtahay inuu cudur ku dhaco. dadkaas isagoo 80 jir 90 jir ayuu buuraha fuulaya oo ordaya oo shaqaynaya oo wax beeraya kaale arag. sababtuna waxa weeye waa malabka. ka insha Allah walaalayaal ku dadaala inaad malabka raadisaan, raadiya malabka asliga ah ee dabiiciga ah ee wax kasta ka celin insha Allah taala. hana ilawna marka videoga daawataan ku soo biira channelka insha Allah, subscribe kala saarta, siina faafiya videoga si umadu uga faa'iidaysato. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.